Assalaamu calaykum. Soo dhawaada daawadayaal. Kartida qoraalku waa hibo Alle bixiyo subxaanahu wa tacaala, taasoo ay tahay in qofku dadaalkeeda la yimaado. Haddaba halkan waxaynu ku arki doonaa qaabka loo barto qoraalka degdega ah inagoo isticmaalayna aaladdeena kombiyuutarka. Ugu dambayntana waxaan kula wadaagi doonaa 3 qodob oo kaa caawinaya in aad joogtayso habka aad baratay. Haddaad ka faa'iiday muuqaalkan, fadlan like saar. Ugu horreyn, waxaa muhiim ah inaad la soo degto barnaamijka aad isticmaalayso amase Mavis. Description-ka hoose ayaad kala degi doontaa barnaamijka, balse ka hor intaanad la degin la daawo muuqaalkan. Ugu horreyn, waxaa muhiim ah inaad la soo degto barnaamijka aad isticmaalayso. Description-ka hoose ayaan ku soo dhigi doonaa linkiga aad kala soo degi doonto, balse ka hor intaanad la soo degin fadlan wadadan soo raac oo eego habka loola soo degayo. Habka ugu fudud ee aad u bilaabi kartid ulana soo degi kartid waa habkan. Markaad la soo degtid barnaamijka, waxaad soo kicin doontaa barnaamijkaagii, waxaanad ku qori doontaa Mavis beacon. waad la soo kacaysaa haddii aan la yiraahdo. Placer ayaa iska leeyahay, balse waxaa yar muhiimsan in kombiyuutarkaagu yeesho 4 GB oo RAM ah. Halkan ayaad geli doontaa magacaaga aad ku bilaabaysid amase aad isku diiwaangelinaysid. Halkan luqadaha ayaad ka dooran doontaa, keyboardka caynkiisana xaggaas ka dooran doontaa haddii aan la yiraahdo. Qaybta hoose waxaad ka kordhisan kartaa speedka aad doonaysid inaad ku tababaratid. Markaad beginner tahay amase qof bilow ah, waxaa ku fiican inaad 25 ku daysid. Halkaas qaybtan ayaad soo gudbaysaa, waxaana ku bilaabmi doontaa wax loo yaqaano casharaantii. Sidiis waxaad ka helaysaa inaad sii gaabisid music-ga, codkana aad iska xidhid haddii aan la yiraahdo. waxaad u gudbi doontaa haddii la yiraahdo qaybta la yaqaano take a lesson, taasoo ah qaada casharantaada. Ku dhufo first beginner lesson. Taabo halka aad ku qoran tahay start. Kadib farahaaga waxaad u dhigtaa ab 8 xaraf ah. Xarafka A, S, D, F ku beeg 4 farood ee gacantaada bidix, halka calaamadda semicolonta L, K iyo J aad ku beegsid 4 farood ee gacantaada midig. Labadaba suunna aad u dhigaysid calaamadda dheer ama space-ka. Hadba calaamadii lagu soo qoro ayaa aad si degan ugu dhufan doontaa haddii aan la yiraahdo, adigoo yar dadejinaya. qaybta hore markaad ka soo gudubtid, waxaad taaban doontaa halka loo yaqaano start. Halkan waxaad ka heli doontaa speedkaagii iyo saxnaantaada intay ahayd 99%. Speedkaaguna 30 buu ahaa, waxaana qaldaday 1 xaraf. Iyadoo qaladid 1 xaraf, isma soo celin doontid, dibna ugu soo noqon doontid. Halkaas ayaad soconaysaa. waxaad u soo gudbi doontaa gacanta labaad oo ka bilaabmaysa xarafka K, L iyo semicolon.
habdegan ayaad u qori doontaa haddii aad leedahay. waxaana adeegan doontaa xaraf walba iyo fartiisa. ugu dambeyntii markaad sideda button dhammaysid waxaad isu gudbi doontaa qaybo kale oo ay ka mid yihiin qaybta gameka start baad oran doontaa. qaybtan waa isla xuruuftii sidii unbaad u isticmaali doontaa balse 8 xaraf kale soo ka dhaxtaray ana ku qaldamin. halkan waxaad ku aragtaa inuu ku leeyahay shaqooyin samaad qabatay 13 qalad baad samaysay isbirkaaguna 12 buu ahaa boqolkiiba 68 saxanta. waxaad oran doontaa start over oo dib aad u bilaabi doontaa ama end oo halkaas ka joojin doontaa. waxaanu soo geli doonaa qaybta la yaqaano home kadibna waxaanu oran doonaa practice area. halkan ayaad ka dooran doontaa qoraalo dhammaystiran oo ku sii yaala. qaybta timing gameska waxaa ku jira game aad u fara badan. waxaana dooran doontaa gameka aad u baahantay. waxaan dooranaa gaarigaas oo kale. waxaad eegan doontaa halka shooqaanta dhexdeeda ah waxaa ku qoran taasoo sahlaysa inaad speed ku socdid gaariga kaaga horeeya speed. waxaad qaladid waxa uu kusoo dhejismi doonaa shaashada kombiyuutarkaaga ee hore. custom lesson designer waa qaybaha hore iyo warbixino kooban oo ku saabsan. reports baad iman doontaa waxaad ka ogaan doontaa darajadaadu halka ay taagan tahay. waxaad ka tegi doontaa halka ay ku qoran tahay keyboard performance. waxaad arki doontaa in xuruuftaada dhigatay. halkan waxaan kugu hayaa 3 qodob oo kaa saacideeya inaad si wanaagsan u baratid Maviska. waqti gaar ah ayaad u samaynaysaa taasoo maalin walba aad ka dhigaysid 1 saac. 10 maalmood oo 1 saac 10 saacadood ayaad ku qoran kartaa gebigiisa. qodobka labaad waa inaad joogtayso muddo ku siman 10 maalmood. 10 maalmood ka bacdi waxaad arki doontaa inaad si wanaagsan u baratay. qodobka saddexaad waxa weeye inaad kalsooni ku qabto naftaada. waa inaad qaladaadkaad samaysay aadana dib u misayn hore ugu sii socotaa. isaga ayaa marka dambe ku oran doonaa waad wanaajisay waxaasana qabatay halka reportka inaad keegi doontaa.